intaas kadib fagaaraha Mandis waxa uu ahaa asaaskiisa dabayaaqadii sanadkii 2017 wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo ay ugu muhiimsanayd tala aruurino gobollo badan oo Puntland ka tirsan iyo Soomaaliya hadduu sariirta isku celiyo oo dhaho caajis baa tahay maanta jaamacadii go shaqadii aad waad isxukuntay maantaasoo dhan maalin madow bay ku cilmi iyo yani macrifo badan u yeesho akhriska duuga akhriskana marka inaynu xooga saarno si ummad ay u soo baxdo mustaqafiin ah oo majaalaadkan kala duwan ee qofka noloshiisa taabanaya wax badan qofkaani uu maaragta ka diraasay oo ka qabto siman oo cadaalad ah looga wada faa'iideysto deegaanka lambar 5 Secretariat of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants xogayn hawleeda heshiiska loogu magac daray Stockholm ee walxaha is haysta adkaysigana u la jiritaanka muddada dheer ee saameeyay diqowga ama hawsaqowga heshiiskani waa heshiis ay adduunyadu isugu afkaratay ilaalinta caafimaadka aadanaha daraadis mustaqbalka ma tirin dhalinyarada maanta tii kan mustaqbalka iyo tan maanta waa tihiin haddaad maqasho awood yeelatay awood waxay ku yeeshaan waa cilmi baaris iyo industrialization waxa la yiraahdo oo ah warshadayn waxaana waa isku xiran yihiin oo asaas waxa uu ah aqoon baa u ah shalaysay wax la yiraahdo talabaad waxaan ahay blogger waxaan aad u analyze gareeyaa siyaasadda waxaan wax ka qoraa waxyaalaha eventska jira sidoo kale waxaan ahay community contributor oo waxaan ka qoraa waxyaalaha ijtimaaciga ah wadankan joogana saasan ka qori jiray waxaan ka qori jiray journal Gulf News oo English oo wadanka soo baxa qiimaha uu leeyahay waxa weeyaan waxa aad iyo aad u taaysan dhalinyarada reer Muqdisho oo mar walba tigidh u soo diri jirtay oo aadi jiray oo tigidhkiisa everything marka annagana waxaan rajayn doonaa inaynu ardaydeena aynu ka faa'iideysano ninkaas xigmadda iyo aqoonta iyo caqliga ku jira taas ayaan rajaynayaa barnaamijkan aan caawa ku joogno waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaa in ninka dhalinyarada iyo tiimkiisa ay halka gaaraan waxayna ii tahay caawa farxad inuu maaragtay Cabdiraxmaan Yare iyo tiimkiisa ay barnaamijkan idinla wadaagaan Cabdiraxmaan iyo tiimkiisa waxay ka tirsanaan jireen markaan wasaaradda yimi arrimaha dhalinyarada ka hadlaynay barnaamij la yiraahdo Nahda oo qoraal ah oo ay bulshada u soo gudbiyaan xogo kala duwan xafiiskayga igu soo booqdeen iyagoo raba inay xog qoraan ay bulshada la wadaagaan waxaa muhiim ah inaan idin sheego dhalinyaradu waa muhiim dhalinyarada la'aanteedana dal ma dhisna waa tiirarka uu dal ku hormaro